السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا مركل واحد كسر باتين إن شاء الله قيبتين اللواد أي journal كيني. وحنا كبلاينا هدي الله يدمو 5 common sentences يعني وشن جملة أو مركزي commona سجود مركزي الله أديك سنيو. جملة مركا وحنا وتر قريشان تان جملة إن استعماشين بلوغا مركا لقدوني إن موضوع لقى حلو. marka doonaya mowduuc in laga hadlo soo qof markuu ku soo bandhigo mowduuc isaga uu doonayo markuu ku soo bandhigo taban waxa laga doonaya adigu inaad falcelin or reaction markaas inaad sameeyso yani qaabka mowduuca isaga kugu soo bandhigay taban aad ugu falcelin lahayd marka ayaa markaas insha Allah aan doonaya markaas inaad u isticmaasho jumladahan soo sodana u isticmaasho markasta qofku ku soo bandhigo mowduuc ku soo bandhigo taban adigu marka ikhtiyaar waxaad u leedahay inaad diidi kareyso inaad ku raaci kareyso haddii diiditaan ay timaado marka doonayso diiditaan inay timaado badana jumladahan adeegsanaysa waxa ugu horeeyo number 2 I disagree with you completely. I disagree with you waan ku khilaafsanahay. I disagree with you waan ku khilaafsanahay completely yani gebi ahaan waan ku khilaafsanahay. I disagree with you completely waxa loo jeedaa gebi ahaan waan ku khilaafsanahay. All right. number 2 waxaan u soo xigay jumladeen labaad waxa weey ereyga completely bad waqnaysa marka number 2 this is not an excellent topic yani kelima aha mowduuc wanaagsan maaha. This is not kelima aha an excellent topic yani mowduuc wanaagsan maaha. This is not an excellent topic waxa weey kelima aha mowduuc wanaagsan maaha. marka ereyga excellent means wanaagsan weeye. number 3 waxaan oo qoran it is a famous erey waxa waqnaysa famous bad waqnaysa. It is a famous topic waxa weeye mowduuc caan ah soo darteed leave it yani ka soco. It is a famous topic so leave it waxa weeye mowduuc caan ah soo darteed ka soco yani. It is a famous topic waxa weeye mowduuc caan ah soo darteed leave it yani ka soco. number 4 waxaad isticmaal kareysaa jumladan don't select aleeda yani ha doorinin. Don't select ha doorinin what you can't talk about waxaadan ka hadli kareynin. Don't select ha doorinin waxa you can't talk about adigu aadan ka hadli kareynin oo tabartaadan ahayn. Soo qof markuu mowduuc ku soo bandhigo waxa leedahay don't select ha doorinin what you can't talk about waxaadan adigu aadan ka hadli kareynin ha doorinin. mise mowduuca waxa dad u aragto mowduuc markaas aan qurux badnayn waxa leedahay it is a famous topic so leave it. mise waxa leedahay it is not an excellent topic mowduuc wanaagsan ma aha. soo kale adii karta I disagree with you completely gibi waan kugu khilaafsanaa leedahay mowduuca. sidoo kale ka soo qaad marka mowduuca aad dhex gasheen gudaha mowduuca lagu jira waa laga doodayo taban. Okay, all right. waxa la yaabaa qofkii marka mowduuc inuu ka baxo ku weydiiyo su'aal banaanka inuu ku weydiiyo oo mowduuc aan ku saabsanayn markuu aad aragto qofka inuu mowduuc uu ka baxay laga hadlaayay markaas waxa leedahay don't skip yani ha ka bixin ha ka gudbin. Don't skip ha ka gudbin the topic yani mowduuca laga hadlayo ha ka gudbin. or مثلا now you're appeared يعني تورت هذا أقونصو ده أول بوحوي حب ما قرنين ده وحوي موضوعا ده تورت هذا ما تورت هذا أقونصو ده أروس ده سؤالها عادة سكة ويدي الله يعني don't skip هكذا جود بين the topic موضوع هكذا جود بين or مثلا now you're appeared مثلا تورت هذا قرا الله ده وحوي ليش حبكم ما يالانه. all right marka shanta jumlada marka sidaas ayuu ku caawiyay waxaan rajaynayaa ka faa'iideysan doontiin. taban wixii adiga soo diyaarisay oo ardayda soo diyaarisay haddana xilliga practice aan la adeegsanin macalinka markuu arko xogaa soo aad buu niijabay. waxaan doonayaa marka in adinku shidaal aan noqotiin yani dhiiri dadka markaasi wax ka karinaya hoosh kala wadaya wax walba yani wixii arkaan yani qabsanaya oo ku hadlaya oo isticmaalaya inaan noqotiin balidanka doonaya. soo macalinka markaasi waxa weeye inta dadaalka idin wado dadaal ka si fiican buu idin laba jibaari yani dadaalkiisa uu laba jibaariya. soo dinkan marka la wada laba jibaari yani dadaalkiisa laba jibaara waan soconay sheekada oo ka soco waxaan u soo xiga topic about practice يعني موضوع كسابسان كسو قال مركا موضوع كسابسان وضع شيء كيسيغا topic about practice موضوع كسابسان practice كأما وضع شيء كيسيغا marka dii adigu doonayso mowduucan practice inaad ka hadasho waa in qofka dhahdaa marka dii wiil uu yahay bro adada hadii gabar ay tahayna sis ama sister ya dhahdaa yani meesha marka qalad ay jiro meesha waxa ka dhigaysiin
talk aan ka rabaa meeshan waxaan ka rabaa inaad igu bedeshiin ereyga talk yani talk waad garanaysaa yani talk wax ereyga igu bedela kana igu bedelaysiin meeshan kana igu bedelaysiin marka waxa leedahay waxa weey marka waxa leedahay marka adiga waxa doonaysaa mawduuca inaad soo bandhigto oo ku saabsan waxa weey practice inaad soo bandhigto doonay waxa leedahay let's talk about practice aan ka doodno wada sheekaysiga aan ka doodno mise wada sheekaysiga aan ka hadalno let's talk about practice nakeen aan ka hadalno waxa weey wada sheekaysiga marka saas saaxiibka uu ku yiraahdo adigu practice waxba aad ka taqaanto ma la bogtahay waxa soo diyaarisay ma la bogtahay marka qalqaaliso ku qalqaalin wuxuu ku leeyahay let's talk about practice aan ka hadalno wada sheekaysiga aan ka hadalno buu ku yiri soo marka adigu marka waxa leedahay qof waxba aan ka ogeyn baad leedahay aska dhigaysa yani qof practice waxba aan ka aqoon baad iska dhigaysa waxa leedahay I don't have any theory any theory wax fikrada kama haysto aniga wax fikrad oo aan ka haysto yani ma laha okay theories about ku aadan marka practice oo sheekaysiga wax fikrad oo ku aadan oo sheekaysiga anigu aan haysto yani ma laha leedahay I don't have ma haysti any theory wax fikrad ereyga theory waa fikrad wey theory waa fikrad I don't have ma haysti any theory wax fikrada towards يعني ku aadan about practice wal sheekaysiga yani wax fikrada kama qabo yani oo ma wax fikrada aan ka isticmaala yani waxay ka dhigan tahay wax kama qaadan practice-ka so marka waxa leedahay what does it mean maxaa loo jeeda wal sheekaysiga maxaa la yiraahdaa wal sheekaysiga what does it mean maxniis muxuu yahay horta ha of everas ka dhigaysa dabaal iska dhigay waxa leedahay I don't have any theory towards about practice so what does it mean أنا وشيكيس وحبوا فكرة كمان هزدي محل ولا شيء ذا اللي ده صاحبك كوسو بنيجي مركا practice كوسو بنيجي كوق الغالي بركو وده وحوي وكله وكوشر يا مركا okay ويا بس كده وحكله let me give you a full information about practice let me give you a full information ويعني وربحن المسترن أو أرج information وربحن أما حق يعني حق المستر أرج full ورمسترن مركا let me give you a full information حق المسترن about practice أو ولا شيء كيس وكساب سن أنكسيو alright وحولي مركا practice ولا شيء كيسي أما ولا شيء كيسي ولا شيء كيسي practice ولا شيء كيسي يسوحوي an exchanging exchanging واستهافسي هو أنا قالوا موبايل كان قالوا أنا لعتن قالوا يعني استهافسي سواسوية ganacsiga Soomaalidu waxa uu waagi hore islaabsi buu ahaa tabcan dadka baadiyaha aanay keen jireen dadka tibna sokorti iyo maacunti waxyaabo ay doonayeen bay qaadan jireen soo fanti hada laakiin hoosh waa ganacsiga waa casri buu noqday soo marka practice wal sheekaysi is waxa la yiraahdaa an exchanging islaabsiga of meeshaasi of ay maqan ereyga of see loo qora waa of somo alright marka meesha offer ka shanaysi marka is an exchanging was dafsiga of the ideas ee fikrada of the ideas ee fikradaha and also sidoo kale it is waxa weeye and also sidoo kale it is waxa weeye waxa any police for us nagu awoodsiinaya ereyga any police yani awoodsiin it is and also locally it is what waxa in police for us no awoodsiinaya to speak English inaynu ugu hadalno Ingiriiska confidently si kalsooni leh yani alright confidently yani si kalsooni leh marka okay waxa leedahay and also locally it is what waxa in police for us no awoodsiinaya to speak English in English ugu hadalno maxaa weeye confidently si kalsooni leh it builds wuxuu dhisayaa builds our English capacity awoodda Ingiriiska it builds our English capacity wuxuu dhisayaa awoodda Ingiriisiga ayuu dhisayaa it builds our English capacity wuxuu dhisayaa awoodda Ingiriisiga ayuu dhisayaa alright marka adadu warka waa ma aqaan mid kartidiya practice goal uu sharaxay si fiican uu sharaxay Soomaa marka saaxiibka markuu mawduuca practice ka hadlayno ku yiraahdo adigu waxaad weydiinaysaa marka su'aalaha aan ku soo diyaar weydii waxa meesha waxay noo qoran lectures questions موضوع سؤاليسا lectures questions عوي موضوع سؤاليسا إلا سؤال مكة سؤال شو رئيس عليه ده what is practice وش كيس سبحان الله ليه هذه
soo kan number 1 dhigi kartaa what is the role of practice waa maxay doorka ama kaalinta wada sheekaysiga what is the role of practice waa maxay doorka ama kaalinta wada sheekaysiga yani wada sheekaysiga doorkiisa ama kaalintiisa de maxaa weeyaa leedahay marka number 3 waxa leedahay what is the advantage waa maxay faa'iidada of practicing English ku hadalka Ingiriiska yani what is the advantage of practicing English in practice sameeyo English ki lagu hadlo faa'iidadiisa maxay tahay leedahay yani all right what is the advantage faa'iido yani benefits waa faa'iido okay marka what is the advantage waa maxay faa'iidada okay hal faa'iido sheegaysa okay what is the advantage waa maxay faa'iidada of practicing English ku hadalka Ingiriiska faa'iidadiisa maxaa weeye aan leedahay ugu dambeyn su'aasha afraad aan ku soo diray weydiin saaxiibka waxa weeye is practice wal sheekaysigu isaga ma yahay yani is practice wal sheekaysigu ma yahay the key furaha of learning ee barashada a new language yani luqad cusub marka la baranayo furum uu yahay yani is practice wal sheekaysigu ma yahay the key of learning yani furaha markaas barashada a new language ee luqad cusub marka la baranayo ugu dambeyn waxa soo gabagabeynaynaa waa sentences jumlado you can use adeegsan karayso during inta lagu guda jiro the discussion yani dooda the discussion yani dooda about the topic ee mawduuca ku saabsan yani marka mawduuc laga hadlayo ay dooda ay socoto sentences ama jumladaha adigu aad isticmaali karayso halka loo qoro ila soo sentences waa jumlado you can use adeegsan karayso during the discussion about the topic okay inta lagu guda jiro dooda mawduuca inta lagu guda jiro all right marka jumlada horeysa aan leenahay number 1 waxa dhigi karaysa qofka de waxa dhigi karaysa waxa weeye explain me briefly yani si kooban igu sharx leedahay waxbaad fahmayso mugdi wax ka dhigi yani meel buu ku toshka ku iftiimi uu kaaga baxay soo marka waxa leedahay waxaad wada fahmayso adigu marka qofkan waxbuu daldalay waxbuu sheegay soo markaas leedahay oo soo boodayso oo fikrayso leedahay explain me it briefly yani si kooban igu sharx leedahay explanation وشرحات يعني explain me يعني إيه شرح explain me it يعني إيه شرح أرنتا briefly سيدا مركا briefly سيكوبا إيه شرح الليلة قوا قفوا أوكي نمبر لابو بوزيا قفكن عادو كودو الآخرين ويا بكور موضوع عادو كودو الآخرين practice sorry marka qofka markuu aad aragto in caadi kugu dul akhrinayo markuu aad aragto inuu kugu dul akhrinayo dabcan waxa leedahay pause ku jooji halkan warku ku jooji halkan yani pause waxa loo jeedaa de ku jooji halkan pause ku jooji halkan ku jooji I got one family the point yani ujeedadana waan fahmay muhiimadu waan fahmay ujeedadu waan fahmay de ku jooji leedahay halkan maruu dul akhrina maya pause your speech leedahay jooji hadalkaagi halkan ku ekeysay pause your speech here halkan ku jooji hadalkaaga ama waxa weeye pause here ku jooji halkan I got one family the point ujeedadu waan fahmay yani wada all right number 6 waxa weyn oo qoran give me yani easy the answer jawaabta give me the answer jawaabta easy leedahay jawaabta easy aniga as soon as possible sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalnimada ah yani give me the qof su'aal weydiis uu taagan yahay bas dhigax oo kale buu taagan oo garla oo soo joog jawaab lahayn markaas waxa leedahay give me the answer as soon as possible easy jawaabta sida uu dhaqsiyaha badan ee suurtagalnimada maxaa kale horta qofka marka saas leeyahay adigu raali noqday mise waxa leeyahay qof miskiin isku ahaa markii su'aal adiga weydiis qorta u geliso muxuu ku jawaab marka or mise waxa leedahay say dheh leedahay yani or say mise dheh yani I can't ma awoodi karayo kama jawaabi karayo torteedii ma aha yani saas iska leeyahay ama se waxa jawaabta si dhaqso easy leedahay qof markuu su'aal weydiiso waxaad raacinaysaa give me the answer as soon as possible or say I can't ugu dambeyn waan soconaynaa number 4 waxay noo qoran your answer is not clear your answer jawaabtaada is not clear ama clear your answer is not clear jawaabtaada ma aha mid cad yani waxay ka dhigan tahay jawaabtaada kuma qancinayo ka dhigan tahay all right
Okay, your answer is not clear. Is not clear. Oh, okay. jawaabtaadi maaha mid cad yani. Mid cad jawaabtaada baa clear. Alright. ugu dambeyn waxaan soo gogoynayna muuqaalkeeni qaybtii sawaad ee journalkeeni. Jumlada ugu dambayso ee shanaad oo ah I can't debate on this topic. Anigu kama doodi karo mawduucan. I can't debate on kama doodi karo aniga this topic يعني موضوع عني I can't debate on this topic أنا وكما دودي كرو موضوع أنا وكما دودي كريو هالكاس أي كسلامية واحد اللي تشيني مرة ديني طبعا يسن نقولن يعني وقت أنا عم بحني وقت إذا كان بحني سي يسن نقولن مثل هو خسارة يسن نقولن طبعا إن شاء الله إنتاني إنك بدن بوحوي ديارة جدك بسوي شران إن هذا إنك أقول استيم مهم دينا إن شاء الله سوتوا هذا مركله